عاوة برنامج كهال كان نقول قلني وحوي تح آدي آدو قيمة بدن تح مركا وهالأبوركو إنه بلعبه دريم كريسان معان كي قيمها أي لا ده هاي يواجبات كنجا سارنبا يوسف تحديثو waxa ay saldhigatayna isaga oo inoo si faahfaahin doona waa isagii oo nool iyo hooyadii oo isweydaarsanaya markaa maanso ku wada hadlaya hooyadii oo u buraanburtay kadibna maansadan caawa la yiraahdo maan gudin xaqaagii ayuu ugu jawaabayaa ila soo dhaweeyay makana abwaanka tixda Yusuf Shaacir soo dhawo abwaan بسم الله الحمد لله إلهي با كليكي مهد له مهدا كدب وحن ينو مهدنا قيا قولها قرمد كلن كان عاوى السوق بنقابيي وحكرانو مهدنا قيا خيارة شرفت له سوء عمري نقول سوء شرفي إماتنك رقيا دمر باله iyagana waa mahadnaqayaa waxa kale oo mahadnaqayaa qolada damalo iyaguna caawa hoolka noogu deeqay oo bari hore kharash bay naga qaadi jireen caawa noogu deeqay iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waati la yiri qofka aan mahadnaqin dadka oo mahadnaqin ilaahayna uma mahadnaqo inta kadib waa la sheegay kulanka caawa mawduuc aad u culus runtii weeye waxaan xasuustaa maalin la igu yeeray hay'ad bisha casba ay yeedhay oo kulan agoomaha ah marka anuguna dadka agoonnimada ku soo koray baan ahaa xaqatan markan hadli kari waay baa laga qaaday telefoonki waxaan dib u xasuustay waayahaygan baan dib u xasuustay dabeetana oohin baaban qabsaday dabeetana baalkii waxaan ku dhaar hadli kari maayo iga qaado waa laga qaaday mawduucyada qaar baa jira marka qofku galo maskax ahaan uu isbedelayo kan caawo kalena waa la mid guud ahaan waalidka marka sidiisaba la isugu qaado aayaadka quraanka marka akhrido meelo badan uu kaaga hor imanayaa waati halkana aayaadkii aynu ku furfuranay barnaamijkana waa ku jirtay ilaahay markuu xaqa oo adoomaha ku leeyahay ka hadlo iyo inay kaliya caabudaan meelo badan baa waxa ilaahay isku lamaanay inay ku lamaan wa bil waalidayni ihsaana usama falka waalidka tusaale aanu soo qaadano suuratul baqara aayada 28aad ilaahay wuxuu la hadlayay reer bani israa'iil a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim وإذ أخذنا ميثاقكم بني إسرائيل وإذ أخذنا ميثاقكم بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا وأنتم معرضون بإلهي ويبدين آياتك كهد لي والدك إلهي حقوق ذا مركو إنه الشيء aad bay u badan yihiin waxa axaadiistana garanaysan de saddex jeer nabigeenu kaleey salaatu wasalaam inuu hooyada saddex jeer markii afraad ba aabaha uu yiri waxa kale oo isna xadiiska garanaysan saxaabigii jihaadka doonayay inuu ku yiri nabigu kaleey salaatu wasalaam hooyada ma nooshahay markuu yiri haana wuxuu ku yiri jannadu hooyada cagaheeda yaaliinay orado dib ugu noqo axaadiis badan ayaa nabigu hooyada iyo aayad badan baa laga hadlaya marka marra waalidku dhan baa laga hadlaya marra hooyada ayaa gar looga sii hadlaya dhaqankeena Soomaaliguna isaguna sidoo uga hadlaya waxa weeye afkan aynu ku hadlayna waxa la yiraahdaa afka hooyo dhulkana waxa la yiraahdaa dhulkii hooyo maxaa loo yiri waxa loo yiri afka ereyga ugu horeeya waxa la yiraahdaa hadaaq ilmuhu markuu waxa ugu horeeyo ku dhawaaqa hadaaq baa leeyahay hadaaqa waxa bara hooyada ilaa inta uu korayo hooyadu way u heesaysaa way koolkoolinaysaa waxay oranaysaa waxa isagaan hadlaynba ay oranaysaa qofkan u jawaabo xataa saaya sida iyada u laqiimaysa iyada u hadlaysa bale iska daaya anigu markan hooyada la kulmo imikaan weydiiyo afka ira hooyo erayada noocaaya noocaasa waa macallinkii afka marka saasa loo leeyahay afkii hooyo
halka soo bilaabmo dhulkana maxaa loo yiri dhulka hooyo dhulkana waxa loo yiri dhulka hooyo berigii hore odaygu waa tacabiri jiray dabeetana muddo dheer buu maqnaan jiray hadduu doono Maraykan buu tagayaa xaas iyo carruur kale ku yeelanaya ama Ingiriis ku tagayaa laakiin hooyadu iyadu halkan un bay joogtaa carruurtina halkan un bay ku haysaa dabeetana markuu soo noqdo halkan un buu ugu imanaya inankeedu markuu dhoofo wuxuu oranayaa hooyo dhulkii baan ku noqonaya halkan ugu imanaya saasaa loo leeyahay dhulkii hooyo waxa kale oo cajiib ah hooyadu leedahay marka ilmuhu dhasho intaasoo magac baa loo bixiya aabihii baa mid u bixiya adeerkii baa mid u bixiya abtigaa bixiya eedadaa bixisa waxaa soo dhami haddana ma shaqeeyaan ka hooyadu ma shaqeeya waxaan dhageysanayay ma dhowta daawanaya waraysi laga qaaday qoraaga booba Yuusuf Dacaalo wuxuu yiri walaalkayna Cabdiraxmaan buu ii bixiyay hooyadayna booba ii bixisay buu yiri kii hooyadu ma shaqeeyay waxa kale oo hooyadu leedahay magacyada haddii aabuhu uga horeeyo tusaale ahaan oo inanka Maxamed u bixiyo halka kuma daysay magac kale ku ladhaa Maxamed Deeq Maxamed Saciid Maxamed Saalax ama hablaana Faaduma Sahra Aamina Degan Caasha Koos magacyadaas ku ladhaysa haddaad aragto magacyada ay saaran hooyada bixisa waana kalgacal ay u hayso ilmaha u hayso Soomaalidii hore waxay oran jireen haddii reerka odaygu ka maqan yahay ilbuu la'yahay haddii islaantu maqan tahayna labadaba waa la'yahay ninba waxa laga sheegay islaantii baa safarkan qabatay oo carruurtii buu la kadeedmay markay soo muuqatay baa carruurtii ka hor carartay islaantii wuxuu yiri wallahi haddaan leela yaabin anaaba ka hor carari lahaa yani mushkiladda carruurta ninka ka haysatay maxay oran jireen raggii hore waxay oran jireen marka guurka ay ka hadlayaan waa ku yiri nin maalin ma gaadhid ninna sanad ma gaadhid ninna weligaaba ma gaadhid ninka ka gabadha wanaagsan weligaa ma gaadhid bay yiraahdeen yani qiimayaasha ay siin jireen dumarka ama hooyada waxa ay aan daraa maanta dhaqan ku cusub Soomaalida oo hore uga jiri jiray inuu ku soo kordhay oo hablaha oo de hooyadii biriya ayaa dhaqan baa yimi kufsi iyo dil wada socda ah dhaqankaasi ma jiri jirin kufsi baa jiri jiray oo marmar dhici jiray kaana waxa la oran jiray ninka kufsada gabadha ku qaado oo wax la isku asturaa la oran jiray waati lagu maahmaahay quruxdeeda waxyeele qadaadku u rita isagu baa la oran jiray guurso deemka muxuu guursaa uu ka dhameynayaabe waa dhaqan aan hore u jiri jirin waxaan oran lahayn dhaqanka laga waantoobo deeniku gabadha waaba guursan karayaa dilkan iyo kufsigan mushkiladda ah aan iska dayno anigu haddaan soo gudbo marxaladayda anigoo yar baa aabbahay dhintay aakhirka 74kii ama 75ka bilowgiisii 1900 abaar xun baa dhacday oo la oran jiray daba dheer oo caana abaartaas aabbahay ku xijaabtay ilaahay u naxariistay iyo carruurtayadii oo malaa 8 baanu ahayno labo baanu kaga hadhnay 6 baa iyana ku dhintay annagoo qurana ma ahayne qoysas badan oo sidaas 100,000 oo qoys gaadhaya malaa ayaa qoys walba qof iyo laba u hadh daacun baan galay marka aniga nin kale oo iga weyn ayaa soo hadhnay hooyaday wixii ay naf iyo adduun iyo tacab lahayd labadeedaas ay dul dhigtay say noo korin lahayd ee wax nooga dhigi lahayd yani waxaan oran karaa waa qofka ugu weyn noloshayda xataa cid soo labaysa aanan garanayn ee noloshayda meel ka soo saaray dhalinyarada imika ama casrigan waxa aad loogu fekeraa inuu wax barto oo dabeetana jaamacad ka baxo oo CV wanaagsan oo PhD ama master ama sidaan oo ugu yaraan degree oo dabeetana uu shaqo helo bitaa ka duwan baan idin sheegayaa 20 shahaado haddaad sidato oo Mareykan iyo Yurub ah oo waalidka ku habaaro shaqo ka dhakubsiimaysid qodobka aniga iga qora cid shaqo ku diranaysa mar allaale marka TV-ga iyo waxa gisaa loo eega unba meel kale wax ka soo dhacay ama loo ninka uma baahnin unba lagu oranaya adiga aan mir garanin hadii waalidku ku duceeyana albaab xidhmaya waxa limid baa intuu dhoofo Jarmalka tagay ayuu albaabadan kala carara marka qofku soo socdo ayuu soo socdo albaabka kala carara markaas waa ducadii hooyaday soo hooyadii baa ku tiri albaab waliba ku furan markaas ay war ma ah samayska albaabka ayaa markaas war ma ah ducadii hooyaday way hooyada bay soo ducaysay waalidku kaalinta cajiibka ah ayuu leeyahay haddaad ifka ku soo gaadho labadaada waalid
وجانس إلهي هدي وكاق بلا جنة أنا أتكون قلي كرتو هدي الحمان كشقة ستعذابتنا أتكون قليس مركا dadka waalidku u duceeya intaan aakhiraba la gaadhin adduunka ay ku arkaan ducada waalidka kuway habaaraana midba aabihii waxa la habaarka ka dhintayo markii noloshii uu meel u kala qabsada waayay ayuu wuxuu war nin dhintay nin nool see loogu garnaqa dayaw garnaqaya odaygu la dhimay marka waxaan lahaa dhalinyaro waalidka ka warhaya oo ducadu meel ciriiriyoon bay ku jirtaa kala soo baxa nin walo wax ismoodaaba adu ku hoos imanaya hadii duca waalid aad leedahay anigu sababta aan soo sheegay baa jirtay hooyaday saasay ila soo kifaaxday taab badan bay gelisay runtii oo aanan sharxi karaynin dabadeetna markii aan weynaaday ayaan isiri wax ku celi waayo islaamku wuxuu leeyahay ilmuhu markuu yar yahayna waajibku waalidku saaran yahay maxaa lagu leeyahay marka 15 gaadho waalidka gacantii mas'uuliyaddu ka baxaya maxaa lagu leeyahay markaad weynaatay adigu xoog yeelato waalidkii baa tamar daraynaya halkii adigu aad shalay ku jirtay markaad carruurta ahayd ee gacanta lagu hayay ayaa waalidku ku jira markaas la doonayaa waajibka inaad qaadato dadka aan islaamka ahayn cajiibkooda TV baan habeen ka daawaday waa qiso cajiib oo la yaabay waxaan ka daawaday nin China ah ayaa hooyadii da'an noqotay waa ku xanuunsatay ninkii islaantii buu karaahiyeystay gabigeedaba intuu qaaday iyadoo nool ayuu aasay intuu xabaal geeyay dabeetana xaafadihii ku dhawaa yaa Blaiskii u sheegay Blaiskii baa u yimi ninkii waa la garaacay uu sheegay islaantii saddex habeen iyadoo xabaal ku jirtay oo nool wali yaa laga soo saaray dadka aan islaamka ahayn say u fikirayaan waa kala wada maqasheen in Yurub dadka waayeelka ah meel la geeyo oo dad shaqaale ah loo qoro halka lagu xanaaneeyo waa halkii waalidku xilligii uu ubadku ducada kala hadhi lahaa waalidka ee gurigiisa ku hayn lahaa marka inagu islaam baynu nahay waxa la ina faray in waalidku markuu tamar dareeyo aynu tuurta u ridano waayo waa markii ducada iyo inta ugu wanaagsan ay ku harsanayd xaaladaydi aniga wuu soo koriyay waalidku ana waynan celiyaa marka hooyaday markii aan waxoogaa ku celceliyay aan waxba de ahayn anigu hayna waxba ahayn ayay buraamuriitris badan bay tiris marka kana soo qaadanay waxa ku tiri intaad xasuusan tahay kuma hadhin xaq dhowr xubeer baan kugu arkaayo ku xambaarshay duco ubadku ku xeebay maalintaad ka xoog yar tahay xajkiina dawaafo xaakimku ku gee balada ka waran ubadku ku xeebay markaad ka xoog yar tahay waxa laga yaabaa 70 jir anigoo marka iyadu ma noola markaas ay sii turaysa xilliga yay leedahay ilaahay ubadka kaama xubeeyo da'daydii bay hadana ka sii warwaraysa marka erayga ay leedahay haddaad xasuusan tahay kuma hadhin xaq dhowr erayga ayaan tix raacay dabeetana waxaan erayga u arkay inaanay iga dhaweyn halkaas ana ka qaatay maan gudin xaqaagi iyana waxay tiri kuma hadhin xaq dhowr Soomaa أنا واحد مان قدن حقاقي يعني واحد لا هويو واحد يران صوت ورطوري واحد معنا له ماها إيجا منا دواء دبتنا واحد نسيري هذا ما صدى سفي عن بالشدة أقول جارسي وما سووا تاجن هويو أردن ما هاني كله هويو ذي هويو أردن بيو تاجنت صدق نبان ما صدى قوة ذلنا لبان نفكر كيلا هاي وآدي يقول ريحين أنا مرهان لها labada nin reer jigjiga ganacsada waxa la yiraahdaa Mustafa Abdullaahi Culujoog aad buu igu dirqay saddexdan ba xaq hooyadan saaxiib ku nahay saaxiibtinimada sidaan ugu aqaano qofba angal baa ka saaxiibtii qofba dhinac baa ka saaxiibtii marka dhinaca hooyadan saddexa labada nin ka saaxiibna ninka kalena caawina la joogaayo Cali Baaruud baa la yiraahdaa waa nin mucjisa ah oo hadhow baynu gaari doonaa ninka waxa soo maray isagana hadhow baynu gaari doonaa maasadii baan marka bilaabaya haddaan inta hor dhac ka dhigay waxaan yiri xidigaha darbaa jira xikmad lagu tilmaansado geelana xusuus baa bariya lagu xirgeeya xawayaanku geedow haddii uu xabaar galo kalgacaylka xunshadu inta kale ka xeel dheer waxa la yiraahdaa xunshada ugu kalgacal badan xawayaanka geedigaasina waa abwaan Axmed Awgeediyo aan ku halqabsaday xanaftiyo kulaylkii fooshiya xanuunkii
xarbadhabashadaadii codku kula xabeebsaday xumad iyo wareerkii xididada jidhkaaga iyo xubnahaaga hooyooy wixii aan xanuun baday ama oonta kaa xidhay miyaan xalay ta jiifsaday sow ma gelin xusuustood xinjirtaan ka beermaay xabkii layga bururshaay xigsintaan ku ababaay xaruntii jidhkayga iyo xundhurtaydu taallaay inkastaan xuskaaga iyo isku dayay xaqaagii xanjeerkaaga oo qudha xurmadiisii maan gudin xaqiiqdii adduunyada xigashada aqoontiyo xilkasnimo adaa baray mar xadaari baa tahay mar xigmaawi baa tahay mar xaraarta nolosha iyo xeeldheeri baa tahay marra bara xariifoo xiisadii dhigaa tahay marra xabagbarsheed iyo qurus xaya baa tahay carabtaa waxay yidhaahdaan al-ummu xay haddii hooyadaa nooshahay bariiskaagu waa bisiliya xabiibkii la doortiyo ambiyada xushmaynta leh axbaabtii rasuulka iyo xamse iyo caloo kale calayhi salaatu wasalaam ama xaaris iyo cumar abuubakar xogtiisiyo caashiya xafsoo jiray adigaa xambaaroo hooyay xanaanshaye xulashada haldoorka ah miyaan kaa xisdiyaya xurmadaada hooyooy dahabkiiyo xariirtiyo xooluhu ma gooyaan xubbigaaga hooyooy aadmigu xisaab iyo xaraf kuma dhammayn karo 3 jeer xadiiskii i xujeeyey baa tahay jannadii iyo xariirtii lay xaqiijay baa tahay xaragada adduunkiyo xiisahaygii baa tahay sharaftuna xaggaagiyo xeerintaada weeyaan xooggaagu kuma gabo caafimaadku kuma xidho intay noloshu xay tahay xidigaagu dheeraah sidii xaawo loo yidhi haweenkeennu xoog iyo xilkas bay ahaayeen sidii xididba loo yidhi haweenkeennu xaas iyo xarun bay ahaayeen xarbi iyo dagaal iyo haddii ay xornimo tahay ama ay xasilin tahay dhaqan iyo xishoo tahay haddaan dumarku xeel iyo xag kastaba ka dalab tirin xadhiggeenna soo hayn xogogaal la weydiin xaajadeenna guul iyo xal miyaad ka filaysaa waa maya nabsaa xaaba lagu dayey aniguna xilmaan gudan xajka hooyo maangeyn xashashaqa warkaagiyo dhabtii lagu xasili jiray xubbigii iyo kalgacalkii iyo hadalkii xidaysnaa xiisaha jidhkaagiiyo sidaan ugu xadrayn jiray ama aad xanaanada hooya iigu xeerayd adaan taada xaalayn sidaad ii xasuusnayd alluunbaa xisaabshoo maan gudin xaqaagii xaamilo shinkeed go'ay iyo xoolka dharabta ah iyo naaska xooxda leh sawcali xogtiisiyo xigashada la yaab kale xujadiisu ima gelin xilligaa isgurayee aabbana xogtiisiyo xayiigtiisa kama tegin kaalintiisa maan xaman haddaan xeerka waayaha laba waalid loo xulin xaajigu sargoynayn miyay xagalka daaciyo xadaafiirba weyda xagashada dareenkiyo xubin iga dardaarana xabageed ku taaliya dadku xoola maahee inta aadmi xay yahay xuska eebba waa kow xubeer waalid waa 2 xidhiidhkiiyo islaamkana xubintaada noole xalaal miirashada guud xeradaada ka adkow hanfigii xagaagiyo sida xeebha kululaan durdur iyo xareed iyo xays iyo ugbaad noqo iyo muumin xoog badan tixda aan ku soo xidho hooyay xumaan iyo xanuun eebba kuma bado xaqiraadna kaa hay xafidaad ku noolow dadku kuu xigaal noqoy xasad eebba kaa dhowr qabrigiiyo xabaashana rabbi meel xun kuma dhigo xawdkii rasuulkiyo janno iyo xariir mudo